وأرين أقول دروا أن إسلام هاي وحيكون كي دون تعباته ومدة الصومالية شرفت هذه مسلمين ودي جبني ودي كارهانا وحيقول سامين إيسا ويبرمدو وعلامة له وموقن دون توجي دون أي كتاي بيش سليمان عدالة دجن ومرتجلية ويديستي مرتجليسي عدو بعنده وسوجليسي مركل بعضنا بيش هذا الجدير أو عير أي قبل لامن أي سو أي كسر حق دونتا وحن لا هي تاسي وحين نقن دونتا عقوبة هي إسلام صعوبة هي وقت تاريخ رجلا وحن كربنا حسن داير أويس شيخ حسن داير أويس بيش هذا الجدير بان كربنا قد كي يكون ديني كسر صارته وحوها شيخ صوماليات بوها نلكي أمد الصوماليات بوها إصبحيوها وضي صوماليات بوها خروج عذاب بوها لنوحوها عن الله كرنو أمد الصوماليات وحبدن بوجفدي أنت عارين عن كل سمر كرنا معها وعن رواين عن فرين وديرو بيش هبر جدير حسن داير ماشي يكون ردين هنا يكسر صاران هذه يكسر ساري وين أول مرة الحمن جري حمتي اللي حمن جري بكل دجوري دونتا أو حقيقة inay gacan geliyeen oo xasan daahir ayagu ay gacanta u geliyeen cadow oo amnigiisii iyo nabadgelyadiisii iyo sharaftiisii iyo muslimnimadiisii iyo karaamadiisii maanta ay duleeyeen ayagana uu ka dhashay una soo nabad galay waa arin taariikhda u gashay waana arin qoran waxa ay ka yeeli lahaayeen iyo waxay kaga jawaabi doonaanna waan sugaynaa hadii ilaahay yiraahdo waxaa la socotaa in dawladdu ay u dirtay wafdi balaaran magaalada Cadaado si Sheekh Xasan Daahir halkaasi looga soo wado iyagoo u sheegay waliba in waji fiican lagu qaabili doono sidii nin odaya loo dhaqmi doono markii maalmo badan kadib dib magaalada Muqdisho ay ugu soo laabteen oo ay sheekhi keeneen waxaa la socotaa dhacdadii xal dhacday dabcan waxba kama qarsoona waxaa ku tilmaami kartaa falkaas waxaan ku tilmaami karaa laba arrimood weeye marka ugu horeysa waan ku celinayaa beesha uu ka soo jeedo oo habar gidir iyo beesha Salaamaan ba way khiyaanayeen Xasan Daahir Aweys naftoodana way khiyaanayeen Xasan Daahirna way khiyaanayeen waxay ogaayeen Xasan Daahir inaysan badbaadin karin waxay ogyihiin dawladda awoodeeda iyo karaamadeeda inay tahay ciidamada ajnabiga Uganda iyo Burundi inay tahay nabadsugideedu Mareykan iyo reer galbeed inay tahay way ogsoon yihiin maysan nabadgelin karin maysan awoodi karin sidaa darteed way khiyaanayeen naftoodina way sireen naftiisina way sireen wayna ku ceebeysay maanta dulinimada ay nigiliyeen anaga ilaa waxa ma kaleeyeen maanta aniga iyo habargidir maanta waxa ma kaleeyeen Soomaali oo dhan waa isku mid maanta dulinimada ay dhaxalsiiyeen way dareemi karaan maanta ayagana hurmuudka ceebtuna lambar 1 ayay taabanaysaa mid labaad qolan dawladda sheeganaysa ballan ma qaadi karaan wax ballan ay jiri karaan male laana ninku waxa la yiraahdaa markuu maalkiisa iyo naftiisa asagu xifdiyo ayuu umad kale xifdin karaa la yiri may awoodi karaan naftoodii ma aysan xifdinin oo ciidan ajnabi ah ayaa hayo waa aragtay nabadsugidoodii waa BS oo waa Mareykan wixii oo dhan markaa isu geyso waa ciidan ajnabi ah marka ma awoodi karaan inay qof badbaadiyaan taasna ballanqaadkii ay ku sheegeen way ka bixin waad u jeedaa madaxweynahana ballanqaadkaas uu qaaday been buu ka sheegay madaxweyne umadeedna ma noqon karo runtiina waa khaa'inul wadan من مدعوينا أو بيشيني أو نوع عاصم بغمهية ومدن مجانين كرا وخاين الوطن فيش وسارو شيء أو كلو يعصو نصول لعبانو وايهي دنك الشباب وحسن داير نفسديسه وكلا soo baxsaday iyaga maxad leedahay mar hadii nafsadiisa ula soo baxsado dabcan meesha uu joogana iyo meesha uu ka soo cararay dadku waxay hadalhayaan isku mid tahay ma yaala isku mid maaha mid uu joogay u fiicnay حسن داير هذا meesha furan laana sharaf buu ku dhiman lahaa haduu ku noolaan lahaana sharaf buu ku noolaan lahaa nimankaasna wuu khilaafay waana waxaan ku wada khilaafnay badan oo hore oo ilaayeen yaaniga waanu xarakada kama aanan tirsanayn in odayguuna taageersan baan ahay manhajkooda qayb ka taageersan ila qayb wanaag bay noo soo bandhigeen diin sharci soo bandhigeen midnimo ay soo bandhigeen wadajir bay soo wada bandhigeen intana been bay ka sheegeen shabaabku wadajir baynan ogolayn علم يحقق يتلقي أقبلين وكل جودين يتليان بيرمان علم يوضح حير على حبنا القواد إن الوقت من عليه رمان عقلك أيام بيرمان ذاتك يوجيان بدون ماذا يعليهم سلا درتب أيان عنه مرحورة بنانك وجود استاجي تاجر ضدي برنامج كوني أنا وقعان عنكو جاري مرحبا عن ثلاثة وداجين وعقلي عنا وداجين أو برشة عنا وداجين أو من ماذا عنا وداجين ومسلمين ماذا عنا وداجين أو أنت لا يبغى يكلي كتاي ومضي سواليدنا يدلين
oo ay gaalaysiiyeen gaalnimo sharci darro ay gaalaysiiyeen qaar badan oo ka midana ay dhiigoodii banaysteen ayna diideen ummadda midnimadeedii iyo wadajirkeedii ay diideen wixii ayagu la gooni noqdeen muxuu ahaa qolooyin aanan shaqo ku lahayn iyo alqaacidana ay kula biireen barnaamijkaas anigu banaankaan ka maray beri baanan ka ahay kumana jiro sheekuna barnaamijku asna banaanka ka noqday bay ahay oo uu rabay wuxuu u madax banaan yahay oo asagu uu doonayo oo uu hor socdo oo asagu hogaaminayo oo ummadda Soomaaliyeed midnimadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii lagu soo celiyay wadajirkeedii iyo qarannimadeedii bay ahayd in la helo arrinta ayada ah waxaa cadow ku noqday oo hor istaagay meeshii asagu uu ka dhashay baa hor istaagtay arrintaasi waa arrin sharaf dhac ku ah waa arrin gobonimada iyo muslimnimadaba ceeb ku ah waa arrin ay ku eedeysan yihiin waa arrin ay ku ilaalaysan yihiin waxaan ka rabnaa barnaamijka inay soo celiyaan sheekhi inay gacanta ummadda Soomaaliyeed ku soo celiyaan asagoo xor ah baanu ka doonaynaa waxaan sidoo kale eedeynayaa qolada dawladda sheeganaysa oo aan magacii dawladnimada wadata oo karaamadii dawladnimada iyo sharaftii iyo qarannimadii laga rabay midna aan lahayn oo aan xuduudoodii ilaalin karin oo muxuu ahaa shacabkoodii aan ilaalin karin oo amnigoodii aan ilaalin karin oo cadaalad aan lahayn oo muxuu ahaa ciidamo ajnabi ay u yihiin muxuu ahaa awood ay u yihiin waan eedeynayaa iyadana waxaanan leeyahay sidaas dawlad kuma noqonaysaan ummadana kuma hogaaminaysaan waxaan idinka rabnaa Sheekh Xasan Daahir inaad soo deysaan haddii aad rabtaan nabadgelyo haddii aad rabtaan ummaddu inay wada hadasho haddii aad rabtaan in la isku soo horfariisto haddii aad rabtaan in midnimadii iyo sharaftii iyo qarannimadii Soomaaliya aan ka wada shaqeyno Sheekh Xasan Daahir gacan cadow ha gelinina waxaan ugu baaqayaa inay Sheekh Xasan Daahir soo celiyaan xurriyadiisii sharaftiisii karaamadiisii midnimadiisii soo celiyaan waxaad la socotaa dagaalkii Baraawo ka dhacay saraakiil sarsara lagu dilay oo al-shabaab ka tirsanaa oo uu ka mid yahay hogaamiyihii ugu labaad ee ku xigay hogaamiyaha al-shabaab qaar kale oo badanna firxad bay uga baxsadeen magaalada oo waxay duurkay ku jiraan afayeenkoodii hadlana waad maqlaysay inuu yiri waa ku raad joognaa waa kuwii dhintana waxay ahaayeen shabaab ay kala jabinayeen kuwa kalena waa ku raad joognaa arrintaasi al-shabaab saameynta ay ku yeelan karto iyo dhibka ka soo gaari kara maadaama taageerayaashoodii ka mid ahayd ayaga waxaan kuu sheegay horta marka hore dawlad Soomaaliyeed oo hore ma aan haynin aniga rajada aan ku xisaabtamayo waxay ahayd shabaab laakiin dhowr arrimood markay la yimideen waxaan kuu sheegay shabaab waa ku daayay ama qof ha dilo ama laba ha dilo ama saddex ha dilo ama konton ha dilo shabaab ummadda taageeradeeda iyo wadajirkeedu macno ku lahaa waxna ku ahaa arrintaasi way baabaaday mana jirto waxaadna ka garanaysaa saraakiishoodii inay hadda laynayaan wuxuu yidhi nin gabiyaa ahaa oo Ismaaciil Mire la dhihi jiray yaa wuxuu yidhi adaa dunida keligaana baa koofir eersaday kaskiisaba ma gelin wiil yar baa keedka kuu qaban radow kibirka waa lagu kufaayo kaa la ogaado kaakici wadaadkii dagaal laguna kaalmee kumanyaal lag wada duub cad buu keenay deerdhiga waxse kadib ka go-ay maalintuu kalay ragiisii adeer ninkaas waa u dhammaatay barnaamijkiisu hoos buu u soconayaa barnaamij diineed kuma socdo mid wadaniyadeed kuma socdo mid aqli kuma socdo mid ehelnimo kuma socdo ilaahay sunnadiisana ka mid maaha waxaan wax ku salaysnayn inay socdaan wuxuu waa inay ama mabda diiniga ku tiirsan yihiin ama mid caqliga ku tiirsan yihiin ama mid wadaniyada ku tiirsan yihiin midna kuma uu tiirsano kaas waa burburay dhanka kale markaan usoo laabto oo barnaamijka shabaab wixii bedeli lahaa waa meesheeda laakiin waa burburay dhanka kale markaan usoo laabto dawladda waxaa laga rabaa 3 arrimood waxaa laga rabaa xuduudeeda inay iyadu ay mas'uul ka tahay oo ilaashato 2 amniga shacabkeeda iyo kala dambeynteeda inay iyadu leedahay 3 inay leedahay maxkamad cadaalada oo muxuu ahaa wax xukunta oo muxuu ahaa cadaaladeeda iyo barnaamijkeeda iyo waxeedu ay sugan yihiin 3daa midna ma jiraan meeshaasna dawladii kama jirto sidaa darteed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in barnaamijka dawlad ku sheega la hilmaamo barnaamijka la hilmaamo shabaabna la hilmaamo la isu yimaado oo kulan la isugu yimaado ummadda Soomaaliyeed waxgaradkeeda culimadeeda saraakiisheeda isu timaado la isku dayo in wax hor la samaysto kadibna la soo celiyo qarannimadii iyo midnimadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed ayaan ku baaqayaa waxaan ku baaqayaa qofkii wax garanayo Soomaaliya barnaamijka ka socda Soomaaliya inuu ka diibiyo nooc kasta uu yahay wax ummadda dani ugu jirta maaha labada dhinac markaan fiiriyada xubna aan ka hayo labada dhinac wax dani ugu jirta ummadda maaha meelna ma gaarsiin karaan sidaas aan leeyahay